wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maayirka magaalada Berbera saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka xubnaha ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo marti sharaf kala tiro badan ayaa ka qayb galay munaasabada xilka kula wareegay maamulkii hore gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta dhawaanta ay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi u soo magacawday gobolka Saaxil ugu horeyna waxa halkaas hadal ka soo jeediyay barasaabkii hore gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyo ku-xigeenkiisii Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo gudoomiyaha cusub ee haatan xilka loo soo magacaabay injineer Axmed Cismaan Xasan iyo ku-xigeenkiisa ma nihin beero wax isku wareejinaya ma nihin beero wax kala qaadanaya qaran baynu nahay waxaynu dhisanay dawlad golayaal baynu leenahay madaxweyne leenahay election baa la garo doorashadeena waxay noqotay one man one vote 390 kun oo cod baa madaxweynaha lagu doortay talo walba iyo hawl walba iyo ciddu bedelayo madaxweynaha horta xaq u leh runtii inaynu ogaanaa fiican beero wax isku wareejinaya iyo beero wax kala qaadaya ma nihin waanu kugu soo dhaweynaa waanu ku garab joogaynaa insha Allah taala maanta aniga maalintii xil wareejinta la igu wareejinayay gobolkani xafiis ma lahayn xafiis uu leeyahay ma jiro maanta mid ergisa wali way waxa weeye mudane gudoomiye in xafiiskii waanu ka wareegnay maanta ninka ugu xafiiska cad ugu xafiiska quruxda badan la tahay gobolka taa ku abshir ninka ugu gaariga fiicanna waa tahay laakiin anigu labadaaba ma helin maalintii hore labadaaba ma helin mudane gudoomiye waanu kula shaqaynaynaa insha Allah taala laakiin waxaan ka dardaarayaa in gudoomiyaha degmada iyo taliyaha qaybtay wada shaqayntu ugu dhaxayso aad isku noqotaan uliyadii waxaan filayaa inaanu annagu waajibkayagu goobta maanta ahaa inaanu weelayno ama qaadanno ama urursanno dardaaranadii iyo warbixinihii halkan laga bixinayay oo aan isleeyahay dhammaan waxay ku qotomeen hawsha aanu maanta la wareegayno waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka xilka ay magacaabeen mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici xilka ay magacaabeen oo aan bulshadana ka codsanayo inay igu soo duceeyaan in Ilaahay xilkaasi igu garab galo marka labaad waxaan mahad celinayaa dadweynaha reer Saaxil soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee ay noo sameeyeen halkay shalay cadeed oo kulul laga hor yimaadeen iyo soo dhaweyntii ilaa xalay ilaa maanta ay nala garab taagnaayeen aad ayaan ugu mahad celinaynaa waana soo dhaweyn aan filaynay hore baan u sii sheegay oo waxaan ku yidhi gobolkaan ka tegay kaan tegay waa soo ka imid taas waa halkeedii waxaan intaa raacinayaa kulli aniga maanta halkan hadal badan iima yaallo waayo xil baan la wareegayaa mar haddaan xil la wareegin hadalkaygu waa kooban yahay waxaan idinka codsanayaa badha saabka hore aad baad ula shaqayseen waad ammaanteen intaa ka badan aad ila shaqaysaan sidoo kale waxa iyagu halkaasi hadalka isu daba maray maayirka magaalada Berbera taliye qaybeedka ciidanka booliska oday dhaqameedyo iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Saaxil waxayna dhawaantood soo dhaweeyeen maamulka cusub ee la soo magacaabay waxayna sii sagootiyeen mas'uuliyiintii hore xasiloon oo gobol aan ciidana isku haysanin waa gobol aan colaadi ka taagnayn waa gobol barwaaqaysan laakiin qodobka yaalla inta badan aanay fahmin gobolkan waa reer magaal uu hadlaa hadalkiisuna turxaan ma laha ninkii hadalka u fiirsado unba hadalka ka damqada waxbana isma taataabto hadalka reer magaalku hadduu hadalka joojin waayana dee hadalku wuu xumaadaa markaa waxaad gudoomiye ogaanaysaa dadka reer Saaxil way hadlaan codkaa ka soo baxaa codkoodaas baad ilaalinaysaa gabagabadii waxaa isagoo hadalka soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye waxaanu si toos xilka ugu kala wareejiyay maamulkaasi gudoomiye idinka baahay adiga tiimka wada shaqaynaysan ee gobolka kula jooga inaa mid ahaataan hadaa mid ahaataan xilka laydin muxuu idmaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland idinmaday waa ka soo bixi doontaan rag adag baa kula jooga rag firfircoon baa kula jooga jaamacana uu ku tilmaamay inaad la shaqaysaa lagaga baahan yahay inaad hogaamiso hagtaa lagaga baahan yahay waxa lagaga baahan yahay
gobolka hawsha culus ee uu bilaabi doono kii hagayay inaad noqoto ee ilaalinaya nabadgelyadeeda cadaawad badan ama muxuu cadow badan bay nagu gadaaban isha la eeganayana waa berbere ogsoonada dado halka lala dagaalamaya ee dagaalka aday ka socda ee adduunkaas ka hadlay waa berbera inaynu ilaashanaa waajibina saaran weyn waa cabdirashiid mubaarag cabdi cabdirashiid suul telefishinka caalamiga Soomaali Cable berbera